akhriska waxa uu kobciyaa afkaarteena wuxuuna siiyaa aqoon iyo casharo aan dhammaad lahayn. inaad lahaato caado wax akhris waxay xoojisaa muruqyada maskaxda iyo xusuusteena. sidaa darteed halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa xikmado dhiirigelin ah oo ku saabsan wax akhriska iyo wax isbaridda. itus qoys wax akhriya waxaan ku tusi doonaa dadka dunida dhaqaajin doona. hal mar oo aad buugga fiirisaa waxaa laga yaabaa inaad maqasho cod qof kale, laga yaabee qofkaas inuu dhintay 1000 sano ka hor. markaad wax akhrinayso waxaad ku safraysaa wakhtiga. akhrisku waa muhiim. haddii aad taqaano sida wax loo akhriyo adduunka oo dhammi ayaa kuu furma, waxaa yidhi Barack Obama. akhrinta buugga wanaagsani waxay la mid tahay adoo la sheekaysanaya dadkii ugu caqliga badnaa ee dunida soo maray. buugga qiimaha badani wuxuu kaaga tagaa waayo aragnimo badan iyo xoogaa daal ah dhammaadkii. buugaagta waa saaxiibo joogto ah, waa la taliyayaasha ugu caqliga badan, waana macalinka ugu dulqaadka badan. haddii aad doonayso inaad nolosha meel uun aad ka gaarto waa inaad wax akhriska badisaa. buugga waa sidii qof fiican oo kale, wuxuu garabkaaga istaagaa markaad ugu baahi badan tahay. haddii aadan jeclayn inaad wax akhrido ma aadan helin buuggii kugu habboonaa. waxaad nooshahay dhowr nolol intii aad wax akhrinayso. nolosha waa buugaag furan oo imtixaan ah. barashada sida wax loo barto waa xirfadda ugu qiimaha badan. aqoontu waxay leedahay bilow laakiin dhammaad ma laha. barashada sida loo noolaado waxay qaadataa nolol dhan. waxaa ka siiya badan inaad barato sida loo dhinto. waxay u baahan tahay nolol dhan oo dhammaystiran. habdhaqanka bani'aadamka wuxuu ka imaadaa 3 meelood oo waaweyn. waa aqoontiisa, rabitaankiisa, shucuurtiisa. maalgashiga ugu fiican ee aad samayn karto ma aha maalgashiga ganacsi, waa maalgashiga aad ku maalgashato naftaada. inta badan ee aad wax barato waa inta badan uu kor u kaco dakhligaaga. waxa ugu fiican ee aadamuhu samayn karo waa inuu ka caawiyo qof kale inuu wax badan ogaado. isduldhigga ayaa ku bari doona aqoon, halka isla weynida ay ku bari doonto jaahilnimo. tayada fahamka ayaa ka muhiimsan tirada macluumaadka aad taqaano. aqoontu waa khasanad u raacda milkiilaheeda meel kasta. dadka caqliga u saaxiibka ahi waxay yiraahdaan wax ka yar inta ay yaqaanaan, laakiin nacasyadu waxay yiraahdaan wax kasta oo ay yaqaanaan iyo waxyaabo badan oo aysan aqoon u lahayn. marnaba ma guuldaraysan, ama waan guulaystaa ama waxaan ka bartaa. jaahil inaad tahay ceeb badan ma laha, waxaa ka ceeb badan inaadan diyaar u ahayn inaad wax barato. macalinka waxa uu bartaa wax ka badan waxa uu barto ardayga. qoraaga waxa uu bartaa wax ka badan waxa uu barto akhristaha. habka wax loo barto waa inaad ficil ahaan aad u baraatikaysaa. inaad barto carruurta sida wax loo xisaabiyo waa wax fiican, laakiin waxaa ka sii fiican inaad barto waxa la xisaabiyo iyo waxa aan la xisaabin. qiimaha ay leedahay waxbarashadu waxa ay ka sareysaa wax kasta oo kale. tani waxay kuu horseedi doontaa dhammaan xulashooyinka saxda ah.